الله الرحمن الرحيم meeshaad nagala socotaan waa Igloon Kidmeed maantay waxaynu ka hadlaynaa taariikhda Sheekh Aadan Maxamed Nuur Madoowe Sheekh Aadan Maxamed Nuur Aadan Madoowe oo tan iyo burburkii dawladii dhexe dalkeena ku soo dhex jiray siyaasadda dalkeena Soomaaliya kana mid ahaa ragga la soo kacakufay ismaandhaafyada siyaasadihii soo jiitamayay ee dalkeena tan iyo burburkii dalka dabadeed ayaa ka mid ah ragga lagu xasuusto magaalada Xudur ee muddada kasii tallaabsatay rubuc qarniga ku jira saaxadda siyaasadda Aadan ayaa xilladii 1956 ku dhashay tuulo yar oo hoos tagta magaalada Xudur ee xarunta gobolka Boqol waxaa ku soo barbaaray isla deegaankaasi oo ku soo bartay Qur'aanka Kariimka isagoo la sii ambaqaadayo marxaladii ku hareereysnaa nolosha qoyska ee waagaas taariikhda waxbarasho ee Sheekh Aadan Madoowe sanadihii u dhexeeyay 1965 ilaa 1970 ayuu Sheekh Aadan bartay oo xifdiyay Qur'aanka Kariimka waxa uuna Sheekh Aadan Madoowe sanadihii 1970 ilaa 1975 Sheekh Aadan bilaabay waxbarashada dadka waaweyn maadaama ay ku gadaamanayeen waayaha nolosha uuna ku hanaqaaday deegaan miyi ah uusanan hanan fursad fiican oo uu ku haadiro waxbarashada nidaamiga ah intaasi kadib Sheekh Aadan ayaa sanadihii u dhexeeyay 1975 ilaa 1980 dib u sii watay daraasaynta culuumta diinta Islaamka isagoo ka gadaalna soo saaray arday badan oo uu baray kalaamka leh ee Qur'aanka Kariimka waayo aragnimadii shaqo ee Sheekh Aadan Madoowe 1991 ilaa 1992 waxa uu Sheekh Aadan Madoowe soo ahaa wakiilkii dhaqdhaqaaqii dimuqraadiga Soomaaliya ee SDM u joogay gobolka Boqol 1992 ilaa 1995 waxaa Sheekh Aadan Madoowe soo ahaa gudoomiyihii degmada Xudur ee xarunta gobolka Boqol 1995 Sheekh Aadan Madoowe waxa uu ka mid noqday aasaasiyaashii ururka wax iska caabinta Raxweyn ee RRA isagoona noqday gudoomiye ku-xigeenka ururka sanadkii 2003 Sheekh Aadan Madoowe waxa uu ka mid noqday 24 hogaamiye ee ka qayb galay shirkii lagu soo dhisay dawladii ku meel gaarka ee Baaqi Eldoret ee uu hogaaminayay Allah u naxariistay madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf Axmed isagoo ka mid ah saxiixaashii heshiiskii lagu soo dhisay dawladdaas 2004 waxa uu ka mid noqday xukuumadii dawladii uu hogaaminayay madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf isagoo sidoo kale isla dawladdaas ka noqday gudoomiye baarlamaan 29 December 2008 waxa uu Aadan Madoowe noqday siihayaha xilka madaxweynaha ee dalka kadib markii uu iscasilay Allah u naxariistay madaxweynihii hore ee dalkeena Cabdullaahi Yuusuf tan iyo 2009 Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madoowe waxa uu soo ahaa xildhibaan ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka ee federaalka ee dalkeena Soomaaliya waxaana meeshaasi ku soo gabagabeynayna taariikhdii Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madoowe